soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dalka ayaan wax yar faaqdi doonaa iyo waxyaabihii ka cusboonaa iyo waxyaabihii 24 saac la soo dhaafay soo baxay waxaa hadlay wasiirka Home Affairs dalka Koonfur Afrika oo markale sheegay inuu dulqaad la'aantiisa micnaha ku dhawaaqay inay qasab tahay in la soo celiyo kala dambeyntii sharciga isla markaana si adag loola dagaallamo howlaha micnaha illegal immigrants ama dadka sharci la'aanta ay ka wadaan dalkan. wasiirkan la aaminsan yahay inuu sharciyada ku adkeeyay dadka isla markaana shaqooyin cusub oo dalka Koonfur Afrika aan ka jiri jirin uu keenay ayaa daqiiqad walba oo uu hortagay baarlamaanka waxaad moodaa inay u tahay fursad uga faa'iideysto inuu soo saaro amarro adag taasoo marmarka qaar aan la ogeyn sidii ku fuli doonto. The rule of law in South Africa is under assault. Our immigration system, including our capacity to enforce border control and management, has not been spared. And as we gather here today, we are mindful that the restoration of the rule of law in the immigration space will be a tall mountain to conquer. But conquer it we must, and over time, conquer it we shall. For on our journey to combat illegal immigration, restore the rule of law, and facilitate the economic growth and job creation that flows from secure and streamlined border management, we require a number of critical ingredients to succeed. And I am pleased this morning to report that the border dhanka kale axsaabtii mucaaradka ahayd ee tabar badan aan dawladda ku leeyahay iyo kuwa aan wax materiaal ay ayagun bilaabeen mar kale uga faa'iideystaan fursaddan inay dukaamada ajaanibta xirxiraan isla markaa ayaguna waxba u qabanin dadka ay leeyihiin dukaamada iska xiran niman siyaasadda ku fashilmay marka kan Action SA xisbiga leeyahay ayaa bilaabay isbuucan inuu xirxiro dukaamada ajaanibta leeyihiin ku yaala locationada qoteen meesha balaayada badan ka dhacday ayagoo ka hadlayo oo aad u dhaha sharcigooda gacanta ku qaaday ee warbaahinta soo bandhigday boolis maahan ciidan maaha xitaa magan xildhibaano maaha dawladda ka tirsan waa niman xisbi mucaarad ah oo mar walba soo sharaxo laakiin wax guul aanan helin marka ayaguna waxay la mid noqdeen dadkii dambiyada gacmahooda ku sameynayay ayagoo mas'uuliyiin oo siyaasiyiin ay dadka horkacayaan. Action SA says enough is enough. The party visited spaza shops in Sianda to inspect their operations. Party leader Herman Mashaba accuses government of prioritizing foreign nationals at the expense of South Africans. At least 23 children have died in Gauteng after consuming poisonous foods believed to be sold at spaza shops. Mashaba says this requires urgent attention before it escalates. Even if we bring the army, because some of these illegal foreigners, they've got very dangerous armaments, which we don't know how they came into this country. Carry out raids with the army, close them down, send them back to their country. It's as simple as that. The party has also called for the amendment of the constitution to bar foreign nationals from operating spaza shops. The bill wants to ensure that 100% dhacdooyin badan oo kalena waa iska jireen laakiin kuwa ugu muhiimsan ayaan iska soo qaadanay walina dugaamadii la xirayay iyo dadkii hantidooda la bilaqaysanayay waa iska jiraan iyo arxantaradii wixii ka soo kordhana barnaamijyadeena dambe ayaan ku fiiri doonaa xilliga dambe ee maanta aad u mahadsantihiin.